أنا أقول في الموردة كذا كلاك سوق قدنا أصلا عمله هنا ضيع $9 لواي soo gado macaan don't worry لعن ما أنا حنون لكن واسك جعله أنا أقول ما wax ala waxa doon soo gado waxyaabahaas waxaa mataqaana labada qofood khadriid it's respect beenta ma أنا لك قصر اللي بجري سوق عن ناس ده بقى عمله ما نخاذ fiir qoftan $300 qal xalan taqaana guriga waxa soo adeega raashin iyo cunno iyo waxa soo gada waa bixi bac makeup iyo waxa wada dhar ee aaw adeegi والله واحد سمان waxaana soo jeclaad maxaa ku sameynay makeup أنا تركيا اسكي يابي حمرين موت ودقنا دنك سوق تاغنا مكتباب كل waxay arkay raashinka wixii dhan way ka leexanay makeup-keeda iyo waxeedii oo leexanay أنا هذا ما لك صباح هذه يجري أديك دونا فرح جامعتك إيمان يصل يسوي سبحان الله ayaanad waxay ka noqotaa ku dhahay ayaanad dabeecad ah waxaan usodale markay xanuusta waxa la jira xabiibtii Allah ina wax soo geeyta wax xiiso ina inta wax ku diro oo hadan wax kala soo geeyta wax xiiso ka caadi jiro السلام عليكم لا فاهم كجرنا طيب حقو شاغه markii ugu horeysay xanuunsana aan soo dhacay magaalada akaad waxay ugu dambeysay ninkaan asal socon dayaxay dafad garaafar serious ها هيين ugu dambeeyay asxam waxa iskala iimaanay xaq ها ma ho hadana habeen hore markii ugu horeysay hadana hadana adaa israacnay dayaxlay kawarnay ما شاء الله very good السلام عليكم دمانتي ما كجرتين قدك لايف كوا كجرا ها واسكا اوكستو يا لايف كجرا dad ha soo galgalana islahaayno السلام عليكم warninka nimma waa bas ka galay laafkiis ani ninkaan ma shano sirteen la sheegsheeyo السلام عليكم دمانتين طيحو إلهي كو دارشي هل أرنا درات كسوف كان ربتي شيك هذا كهر أو أنت واحد كاي شيكي أيور عيبين يسأتح إيوه وعدوها تريو محايما ياسم وشاور فهنا يدي واحد هوتيل ملايكة أنا كنت جوجنا عيبين يستي ويتري أيوه أيوه عيبين يسأتح درد مري أحمد إلي جوجتي ضن إنا قشتاك عبصد مكتب كعيش هذا لك صح على بالله تلام في الشاس لا وده ما في الشاس لا هذا مري إنه بقدرته أركز هذا عادنا أسكر مسكين ضيحو إلهي والله أنا جاك عبصد بري أبو مرضن بقى فاريها قال لي هاي أوكي معنا الله بيسامح لكن جبرها كدقن جبر مكدقة دونوري جبرها عوزارية وعكاكل السلام عليكم all بليز كثير المبتدع عد كفتنا والله وافديه دي أرتجي ماذا وحنا كم بهذا الرواية لا أدري يبقى هذا مالكل ها السلام عليكم دمانتي جبراك دقيقة دوسا وانا كنا حبيبتي السلام عليكم وسوقرا جبر الرفياني ماذا كوذا دوسا فرعي ومخلصا مو جبر جبرا مجرى هي تسي كرو السلام عليكم هاد سوقرا انا وكنا سوقها سوقرا يا أرتي الله والله جبر ممكن جرتا جبرا ninka markuu adig way moogtahay anoo u shitay anoo naftii keeni jiray qofta la soo kala wareegay shaaka caadi iga sheekeynay qof wax iga sheegay dhac qofta marka asarna xaalada farxiyo dhac asaasi ku dhees sheekadan runta la ka qawna dadka farxiyo ka sheegis ma aaminayeen ana ma waxaas ku dhahay war waxba farxiyo ma dhiina eelayn ana runta la sheegay maad oo meel looga leeyahay marka day haduu qof heesan anoo igu soo jeesanaan faantiin sheekadii ma xasuustaa laakiin wada baalti inta fadhiga fadhido oo adig day baad garaafada sheegay يا أشكت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا دارت ديتي شيء كذا ها رنمان والله ها دراد ما وقشت والله كان جيني اوكي بركة كنا إماد معاي بليس وحكاد لا أرنتي أو عاونت ضدكنا إيه أنا ملي عاونها يميا ما هذا أنا كو عاون عاومات أنا كو فيلن أيضا جملة أهم كسين حتى أنا هاي عاوي هاي ده ما قبل قفتها مصواف الشلع هاي بيب ستة من شيء كم سوي قلنا قبل أن فرحية الله ده هاي كعيدة والله هاي شو فادوك كل ده ولا بعيد هلا سو عاوي أني معلقة عاون عيد بس كان كوجر الله بقول هبل كيس سدح بقول أو كل كده ما أركنه ما أنا يصور عن عمكي ويصور عن no يصور عن أديك you have 72 72 هستا
I don't know miya ma horta kabray maxamed dhihi jiray diamond miya hebel ma dhihi jiray kabray diamond stylish waxas ma dhihi jiray ha diamond stylish waxas oo ku qoran jirta Facebook gaga ex friend haduu soo duqoobaya adiga kabray inta daabar hadan kabray salaan kabray okay macaan dadkood wax weysanay ama maalidkood waxa waa anaga xamaran joognaa dhibaatada badan marka macquul ma noqon karto inay maxaa la ii sheego cid walbo siday wax u rabto nolosheeda ugu dhameystiranto cidii markaas nolosheeda u dhameystirantahay alxamdulillaah ilaahay ha ku mahadiso laakiin xamar dhibaatada iska badan tahay marka saas anagoo dhalinyaro ahaanba waxaan jeclaysanay inaan sameyno tabarucaad ku saabsan maadaama anigii alxamdulillaah oo xoogaha dad ay yaqaaniin oo maanta waxaan soo bandhigay iyo waxaan ka hadlo dad badan ay gaari karaan ayaa waxaan go'aansanay inaan maxaa la lahaa aan sameyno tabarucaad aan caruurtaas ku tabarucaadayno si caruurtaas ciidi ay u helaan dhar maxaa la ii sheeg fiican oo ay ku ciidi karaan oo caruurta asaagood iyo caruurta kale ee Soomaaliyeed intii markaas aan ka gaarnay awoodeena ah adiga waxaan isku day doonaa boqolaalo laakiin hadda tiro gaar oo ayimi karna ma jirto maadaama wali aanan maxaa la ii sheeg si toos ah aan u bilaabin maanta waxaan soo gaaray lacag ka socoto wiil lagu magacaabo walaalkeen Cabdulqaadir wuxuu ka soo diray Netherlands Holland أبيسا ما شاء الله جريودي إلهي إنه ونحرستو جنة الفردوس إلهي كورابيو فضلا نقص الدعاء وحب بحيي لباتن عرور لعقته أو بحيي وحكلو لعقك كلا بلنقادين رجوا وين أو ريال أو كميدي هاي ابتدائي علسو سقوا بلنقادين شن لعقتي سمرك لفيري شن عرورة sidoo kale adiga dhalinyaro badan wariyaal ah ku jiraan wax badan baa yani iska wada kaashan doonaa ka maxaa la ii sheegay dadka caanka ah iyo dadka maanta maxaa la lahaa alxamdulillaah lacagta yar xitaa soo gali karto oo yani wax u qaban karo qofkii laba cunug maxaa la ii sheegay ciidsin karo qofkii hal cunug ciidsin karo qofkii 5 ciidsin karo qofkii 10 ciidsin karo qofkii 20 ciidsin karo qofkii 30 ciidsin karo qofkii 50 ciidsin karo qof walba sidii maxaa la ii sheeg loo kala tabaroon yahay iyo sidii maxaa la ii sheeg loo kala maxaa la ii sheegay يعني قعن وين هاي ضدكم محل أي شيء للرباء إنه وحقل سمستان صدقنا إلهي محل أي شيء بريتك وعن فعسا وحقوق من دونتا marka inaga hadda waxaan u soo abaabulnaa asal dhalinyaro ahaan waxay tahay wadankii waa joognaa dhalinyaro nahay magaciiba waan ku leenahay wadankii dhexdiisa waa sax waan iska shaqaysanaa wax waan qabsanaa laakiin waxay ku wanaagsan tahay marka caan tahay oo magac leedahay oo at least dad aniga caanimo ma sheegan karo oo macnaheedu in caanimo sheeganayo ma aha laakiin at least markay dadku yaqaaniin ama dadka ku dhaxnooshahay inay yani ay ku aqoonsan yihiin waxa wanaagsan magacaasi kugu aqoonsan yihiin inaad wax ugu qaban karto dad kale oo baahan ama dad kale oo dhiban saadarteed ayaan anaga go'aankeeda ku gaarnay sidii labadii gabdhood ee yaryar oo hadda ka hor caawi jirnay oo kaleento inaan haddana maxaa la ii sheegaan u caawino way ka weyn tahay arintaasi tan hadda maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan boqolaalo isku dayno sidaan ku caawin lahayn inkastoo weli tiradii aan cayimin laakiin waxaan sameyn doonaa isku day aad iyo aad u weyn insha Allah haduu Ilaahay raali ka ahaado marka caruurtaas oo ama xiriyooyinka ku jiraan xiriyooyinka barakaca ku jiraan iyo caruurta agoonta ah intiba maanta dhibban oo aragno inaan u koolgalno oo soo helno oo maxaa la ii sheegay aan raadino marka muhiimadda ugu weyn qofka maamulka adiga iyo qof isoo qoray waa arkaa qofka ugu weyn oo arinka hindisay oo curiyay waa aniga qofka ugu weyn oo maxaa la ii sheeg bixin doono oo lacagta ay ku soo dhici doontana waa aniga qofkay ka bixi doontana gacantiisa waa aniga laakiin dhalinyaro oo walaalo ama saaxiibo aan ahay ay la shaqeyn doonaan oo wax walba soo iyaga soo dhameyn doonaan laakiin aniga muhiimadda qabashada iyo bixinta leeyahay haduu Ilaahay raali ka ahaado laakiin waa la shaqeyn doonaa marka taasina waxay wanaag u tahay inaan maanta dhahno dawladdan suugeynaa inaan maanta dhahno dad kale aan suugeynaa inaan dhahno deeq kale aan suugeynaa annaga Soomaali ah kunkeen haduu kun kala dul fuulo waa 2000 kunkeen haduu labadeen kun hadii laba kala si kor fuushan waa 4000 marka inaan dhahno dad kale wax ka suugeynaa iyo cid kale aan caawinayso waxa ka wanaagsan annaga dhalinyaro ahaan iyo dawladdan caawinayso inta intaan dhila waxa ka wanaagsan
in cid kasto iyadu xil gaara iska saarto waxa markaas maxaa la isha mas'uuliyadda saaran maxaa yeelay qofku markuu magac leeyahay mas'uuliyadda saaran wuxuu mas'uuliyad ka saarantaa bulshada markaas uu ku dhexnool yahay oo caanka u yahay waxaana wanaagsan at least wax yar oo haba ahaatee inuu wax un kusoo kordhin karo marka maxaa la isha that's why anaga waxaan aniga ahaan especially aan u damcay inaan caruurtaas caawiyo oo maalintaas ciidda hadduu ilaahay raalli ka ahaado nafna ilaahay nagu gaarsiiyo aan maxaa la ii sheeg aan ka farxino oo ka qoslino lambarka EVC-ga wuxuu ku qoran yahay kor qofkii Soomaali joogo qofka kalenta message wuxuu ugu soo diri karaa page-kayga oo openka hadda ah 24 hours ilaa inta laga gaarayo oo jawaab kasto la siin doono oo maxaa la ii sheeg yani dadka loo jawaabi doono halkaas wixii macluumaada iyo wixii fariimo ah waan la soo wadaagi kartaa insha Allah tacaala dhamaantii waa idin salaamaya 100% commentiyada waa akhrin doonaa dayaxo hool fiican ayaad wadaa waa ku garab taaganahay waana diyaar insha Allah thank you walaalo waa arrin wanaagsan walaal ilaah kula garab gala aamin ya rabbi gool iyo gobonimo aamin ya rabbi dayaxo saaxiib macaan walaal halkee ku soo diraa alle intii wax taban walaalahay waxa ku soo dirsan lambarka horta kor ku qoran yahay oo lambarka lagu soo diraayo maxaa la ii sheegay wixii markaas macluumaad gaar ah laakiin hadda maadaama ay furantay waxaan idinka codsanaynaa inaa igala soo hadashaan page-ka messengerkiisa I don't know messagekiisa meesha message-ka loogu talagalay inta kala hadlo waa open oo mar walba message la soo diri karaa saadarteed halkaas igala soo hadlo insha Allah tacaala waxaanan idin la wadaagi doonaa akhbaar kasto insha Allah soo kororto waxaan sameyn doonaa caadi ahaan waa in kugu soo post gareyn doonaa waxaan caadi ahaan idinku soo post gareyn doonaa lambarka iyo maxaa la ii sheeg magaca markaas lacagta lagu soo diri karo insha Allah tacaala waxaan sameyn doonaa shaqada aan isla wada garab galno aan isla wada caawino dhalinteena Soomaaliyeed maxaa la ii sheeg waa kaasa dhamaantii waa salaamaya salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh